waxaa maanta si rasmi ah xilkii loogu wareejiyay madaxa caafimaadka asaasiga ee wasaaradda caafimaadka gobolka Sool Faadumo Maxamed Xuseen waxaana munaasabad kooban oo loo qabtay xil wareejintaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka shaqaalaha iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool ugu horeyntiina waxaa halkaasi ku simaha isduuha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr. Bile Maxamuud Cali waxaanu xilkii shaqaalanimo ee ahaa BSc-ga ku wareejinay Faadumo Xuseen Maxamed oo xilkaasi uu hayay Faarax Awil uu hayay baan ku wareejinay marka laba qof oo shaqaale xil loo kala wareejinayo hanti muuqatay oo taalo leeyahay kaana ma jirin laakiin waxay ahayn shaqadii sidoo kalena waxaa hadalka isu doon maray mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee shaqaalihii ka soo qayb galay inayna maanta xil kala wareejinta lagu magacaabay Faadumo Xuseen waan soo dhaweynaynaa haddaan nahay wasaaradda caafimaadka Faadumo waa qof aan wax badan ka aqaano insha Allah waxaan rajaynayaa waa qof hawl kar ah inay shaqadeeda si fiican uga soo baxayso madaxa caafimaadka asaasiga loo soo magacaabay wasaaradda caafimaadka gobolka Sool Faadumo Maxamed Xuseen waxaan mahad ballaaran u celinayaa maamulka wasaaradda caafimaadka heer qaran oo ugu horeeyo wasiirka mudane Salebaan Ciise Axmed Xagla Toosiye iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka mudane Salebaan Jaamac Diiriye anigu waxaan ballan qaadayaa inaan la shaqeyn doono shaqadeydana si hufnaan iyo daacadnimo ku jirto u gudan doono waxaan maanta halkan isugu nimay xil wareejintii maxaa la yiraahdaa xiriirinta caafimaadka gudaha iyo dibaddaba oo awal uu ku magacaabnaan jiray inkii loo oran jiray Faarax haddana sifa sharci loogu soo magacaabay gabadhan Faadumo Xuseen Maxamed ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Cabdirashiid Xirsi Dalmar ayaa xilkii ku wareejiyay madaxa caafimaadka asaasiga ee loo soo magacaabay xilkaasi waxaan ka rajaynayaa inaad la shaqeysaan waxaan ka rajaynayaa wixii aad ku dhaantaan khabiirnimo iyo weynaanba waxaan filayaa xilku waa meerto Cabdiraxmaan Cali Ducaale Home Cable TV